رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. waxaa aan tacsi u dirayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogto qaraxyadan isdaba joogga ah ee ay ku dhimanayaan dad badan oo abriya oo ummadda Soomaaliyeed ka mid ah inagoo xanuunkii isgoyskiisa aan weli iyo gurmadkiisa weli aan ka dhamaanin ayaa galabtana waxaa la sheegay laba qarax oo iska daba joogay inay ka dhaceen magaalada Muqdisho nasaxbooda iyo meel kale ku dhow dad badan ay ku nafwaayeen. risaalada meeshan aan ka duubayo hal arrin baan u duubayaa waa digniin aan u dirayo ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto khaasatan dadka dowladdeena Soomaaliya maanta ku nool cadowgaas doqonka ee daalimka ah ee mujrimka ah ku talagalay inuu gumaado ummaddeena Soomaaliyeed iyana u qaadanin inay yihiin keligood laakiin acdaa badan iyo cadow badan ayaa gacan ku siinaya arrinta iyaga ah khaasatan hadda laga soo bilaabo qarxii weynaa ee lugneerka ee ka dhacay iskoyska Soomaaliya laga bilaabo ilaa maanta ka dhacaya faruhu waxay ishaarayaan ama xaqiiqadu ay ishaaraysaa inay ka dambeeyaan dowladda la yiraahdo dowladda Imaaraadka Al-Arabiya Mutaxida waxay ku dhaarteen mas'uuliyiinta qaarkood oo dowladda Imaaraadka sida ay ku muujiyeen magaranayay Twitter-kooda iyo wasaaradda islaamka maadaama ay Turkiya joogto dalka Soomaaliya inay ku celin doonaan ummadda Soomaaliyeed dagaalkii ay ummadda Soomaaliyeed ehelka ahaa ee ka dhacay Soomaaliya iyo go'aan ku gaadheen waxaana xaqiiqa hubka dhacaya maanta iyo dilka maanta dhacaya inuu yahay hadaf siyaasi inuu yahay kuwa duqumada ay diintooda iyo dameerkooda gatayna ay ka qaadanayaan hubka iyo lacagta ay ka qaadanayaan dowladdaas sharka badan ee go'aanka ku gaadhay inay damiso nuur kastoo iftiina oo islaamka iyo dadnimada oo ka dhacaya caalamka islaamka khaasatan Soomaaliya waxay ka xun yihiin inaan dowlad noqono waxay ka xun yihiin inaan amniga noo soo noqdo waxay ka xun yihiin in ay shaqeeyaan magaranaysaay mawaanideena iyo mataqaanaa badeenu iyo furdadeenu inay shaqeeyaan ayay ka xun yihiin iyagoo xaasidnimo u sameynaya kana ka baqaya in ay ta'asuraan ama ay wax noqdaan furdadahoodu oo alaabti ka soo degaysay ay nusqaanto nimanka loo yaqaan adduunyada dadka ugu xoolo badan inay yihiin inaan noolaano oo annagu aanu naf yar haba yaraadee aan qaadana iyo naga xasdinayaan walihaada walaalayaal iyo inaa meelo fog aadin dowladda sharka badan ee aynu ogaanay waxay sameeyeen xataa dowlad goboleedyada waynu arkaynin in lacaga kaashash oo boorsooyin intay qaadeen ay u geeyeen si ayna dowladooda ula heshiinin oo ayna dowlad ayna u noqon hal dowlad oo isku xidhan aan markaa waxaan qabaa anoo naseexa iga tahay iyo walaalnimo dowladdaas sharka badan ee inoo cadaysatay cadaawadeeda horta wala safiirkeeda waa in dalka laga bixiyo waa in ciidanka maleeshiyaadka ay samaysteen la furfuro oo waa in la joojiyo waxay bilaabi doonaan hadda waa dil caamo weeye dadku dhan ay dilayaan hadda waxay bilaabi doonaan inay toogtaan madaxda nin kastoo mukhlis waa ummadda inay usoo diraan mid camiil oo uu toogto shaarica Muqdisho iyo shawaarica Soomaaliya inay magaranayay ay ku toogtaan waxaa kaloo ku xigta inay furtaan xabisyo iyo gaar oo dhulka hoostiisa oo ay ku xidhaan dadka wadaniinta iyo dadka doonaya inay dalkooda u shaqeeyaan halka intaynaa gaadhin dowladdaas daalimada ee noo cadaysay cadaawadeeda albaabada aan xidhno safirkadan hala celiyo maleeshiyaadkadan hala baabiyo hana looga dacwoodo adduunyada iyo mutaxidi cidda magaranaysaa laga yaabo inay weyloog yihiin laakiin cala alaqal in toos lagu qabto oo la iftiimiyo cadaawadooda la sheego ilaahay baa raasiqa marka horeba waa noolayn laakiin arrintaa aynu samayno sida ugu dhaqsaa badan haddii kale jiritaankeenu khatar ayuu gelayaa arwaaxda dadkeennuna saasay u qulquli doontaa ilaahay waxaan bariyey inuu sharkooda iyaga ku celiyo
oo kaydkooda dhuuntooda uu dib ugu celiya allah subxaanahu watacaala laakiin laa yuldaqu lmu'minu fii juxrin waaxidin maratayn ayaa la yidhahdaa nabigu yihi sala allahu calayh wasalam muuminka god laba jeer lagama qaniino muqafaliin ma nihin iyo jaahiliin waxba garanaynin sida iyaguna moodayaan ee aynu sidaas samayno sala allahu calaa sayidina muxamedin wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin